السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa shacbiga reer Somaliland meel kasto ay joogaan gudayada dabadba. Saaka waxa inoo bariyay waa cusub. Waxa aynu rumaynay rajo aan sugaynay 34 sano. Rajo aan u samraynay 34 sano. Rajo aan riyo ku dhisnayn ee aan ka shaqaynaynay 34 sano. waxaan rabaa inaan u mahadnaqo shacbiga reer Somaliland dabaaldegi balaadhnaa ee ay dhammaan gobolada reer Somaliland ka sameeyeen habeenkii xalay ahaa iyo farxaddii iyo reynreyntii iyo wanaaggii ay ku qaabileen aqoonsiga ay dawladda Israa'iil siisay Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan rabaa inaan u mahadnaqo mucaarad iyo muxaafidba. si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa dadka mucaaradka ahaa ee halka adka ee mayalka adka ee maalinta ay Somaliland tahay gartay inay kala saaraan qarannimada iyo maxaan ku dhahdayay mucaaradnimada waxa dhexdeena jira. waxaan u mahadnaqayaa media oo run ahaantii qaatay kaalin qarannimo, qaatay kaalin muwaadinimo, qaatay kaalin Somalilandnimo oo maxaan ku dhahday codkii shacbigooda iyo dawladooda iyo mucaaradkooda iyo dadkooda iyaga oo maxaan ku dhahday aan u meeldayn gaarsiiyay dunida iyo meel kastaba. waxaan idin leeyahay mahadnaqa ugu weyn idinka ayaa leh hadaa warbaahinta Somaliland tihiin. waxaan u mahadnaqaynaa dawladda Israa'iil oo rumaysay halganka Somaliland ay ku soo jirtay muddada dheer. Israa'iil waxaan wadaagaynaa dana siyaasadeed iyo qaar istiraatiijiyadeed iyo qaar dhaqaale. waxyaabaha ay dawladuhu wadaagaana kuwaas weeye. dawladuhu iyagoo kala midaba, iyagoo kala dhaqana, iyagoo kala diina ayaa haddana waxa ay wadaagaan dana siyaasi ah, waxa ay wadaagaan dana dhaqaale, waxa ay wadaagaan dana istiraatiiji ah. Somalilandna waa dal dunida waxay ku soo jiidato hadday dhaqaale tahay iyo hadday istiraatiijiyad tahay iyo hadday dhaqan tahayba haysa oo leh. aqoonsiga Israa'iil ay Somaliland aqoonsatay maaha mid curad ah oo maanta uun dhacay, laakiin 1960kii Somaliland markii ay xornimadeeda ka qaadatay dawladdii Ingiriiska, Israa'iil waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horeeyay ee Somaliland u aqoonsada inay tahay dal madax bannaan. waxa uu ahaa aqoonsigaasi aqoonsi ku dhisan sharciyad caalami ah. maanta kana waxa uu yahay mid ku dhisan sharciyad caalami ah. Israa'iil sidoo kale waxa ay aqoonsatay markii inagu oo xor ah oo aanay cidinayna qasbin, cidinayna jujuubin, aynu go'aansanay inaynu Jamhuuriyaddii Soomaaliya ku biirno si aynu u xambaarno himilo iyo aragti Soomaalinimo oo shantii Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan laakiin guul daraysatay. maalintii inagu go'aanka aan qaadanay ee aan Soomaali ku biirnay haddana dawladihii ugu horeeyay ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed aqoonsada waxa ay ka mid ahayd dawladda Israa'iil. taas waxay ku muujinaysaa Israa'iil inay xidhiidh dheer iyo dana siyaasi ah gobolkan aan deganahay ay ka lahayd. xaqiiqooyinkaasi waxayna tusayaan in Israa'iil weligeedba diyaar u ahayd in ay Soomaalida iyo gobolkaba la yeelato xidhiidh ilbaxnimo iyo dan wadaag ku dhisan. dawladda Somaliland waxa ka go'an inay qadeedeeda aanay cidnaba uga gaban. maanta kuwa inaga aqoonsigeena ka soo horjeeda ee leh dan Soomaali ayaan wadnaa, ama dawladaha ahaadaan shisheeye ama Soomaali kalaba ha ahaadaane, waxa ay miskaraynayaan xaqiiqada ah in ay ka soo horjeedaan oo ay duudsiyayaan himilada iyo doonista 6 milyan oo Soomaali ah. in ay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin sharciyada iyo taariikhda iyo jiritaanka ummadan aynu xalay arkaynay faraxtideedii, korjoogeedii iyo sidii ay reynreynta ugu soo dhaweeyeen aqoonsiga maanta ay heleen. kuwa sidaa ayna leh waa kuwa dawlad aan jirin, meel ay xukuntaa jirin, xamar qayb ka mid joogta u ogolaaday inay sharciyad ku haysato.
waa kuwa u ogolaaday in meydka ka imanaya maxaan ku dhahdaa reer Somaliland ee ku soo dhinta waddan shisheeye keenistiisa waa kuwa u ogolaaday inay fiisa ku xidhaan kaasi maanta aniga dantayda ima sheegi karo dadkayga dantiisana uma sheegi karo waxaan ogeyn taariikhdeena waxaynu u soo marnay waxaynu u taaganahay waxaan rabno iyo waxa aan u soconno dawladda Soomaaliya waxaan rabnaa inaan u sheegno annagu waxa aan diyaar u nahay inaga oo laba dal oo walaalo ah inaan iskaashano inaga oo laba dal oo isgarabsanaya inaan ka wada shaqeyno danaha aan gobolka ka leenahay iyo kuwa aan dunida ka leenahayba xasan sheekh iyo inta ag joogtaa waa inay ogaato ummad la caburin karo oo la hor istaagi karo oo himiladeeda la duudsii karo inaanay ahayn ummadani waxa ay la dagaalantay dawladdii Siyaad Barre oo ciidanka bariga Afrika ugu xoog badan haysata xasan taariikhdaas aan ogeyn dadkan aan aqoon halkan sidii ku yimaadeen baanu ka warhaynin xogogaalnimo la'aan ayaa haysa waxaan doonayaa inaan sheegno dadkani dad seexda maaha dad jiifsada maaha dad dantooda maxaan ku dhahdaayay habeen ka nasta ilaa inta ay ka gaadhayaan maaha wuxuu baahan yahay inuu barto dadkan taariikhdooda wuxuu baahan yahay inuu barto dadkan himiladooda wuxuu baahan yahay inuu ogaado dadkani waxa ay rabaan waxaan rabaa inaan u soo jeediyo dadka Soomaaliyeed annagu waxaan rabnaa halkan inay noqoto hoy dadka Soomaalidu ku nabadgeli karaan hoy dadka Soomaalidu ay ka shaqeysan karaan hoy ay dadka Soomaalidu ku soo helan karaan hoy aan lagu cunsuriyadeynin hoy aan nacbaashiye laga tusin hoy aan ahayn mid maxaan ku dhahdaayay lagu duudsiyo oo lagu fogeynayo iyagana waxa aan ka rabnaa wanaaga noo soo kordha iyo waxa aanu helo iyo waxa aanu qabsanayno inay bogaadiyaan inaanay ka xanaaqin inaanay xasadin inaanay fogeynin waxaan ognahay xaqiiqada taale ah maanta dad Soomaaliyeed oo dawladda oo run ah oo meel wada jooga inaysan jirin inaanay intii halka wada joogtay meel isugu keenin inay ku guul dareysteen inay dawlad macna leh oo dimuqraadi ah oo la isdoorto ay dhistaan inay nabad keenaan Muqdisho in ay xasiliyaan ninka Muqdisho xasilin kari waayay himilada inanka ceeri gaabe sida ma qaadi karo himilada inanka boorma sida ma qaadi karo himilada inanka jooga maxaan ku dhahdaayay gabiile iyo saylac ma qaadi karo himilada inanka laascaanood iyo burco iyo oodweyne jooga ma qaadi karo naftiisu beenu sheegaya ummaddu beenu sheegaya dadku beenu sheegaya waxaan leenahay Soomaali weyn way dhimatay soona noqon mayso waxa u baahan tihiin ina ka sabartaan waxa u baahan tihiin ina si kale u fakartaan waxa u baahan tihiin ina tiraahdaan inagoo Soomaali ah maxaynu wada qabsan karnaa afxumo iyo hadal xumo iyo cadaadis Somaliland ku iman mayso kumana soo socoto 34 sanadood oo aqoonsi la'aan ah Somaliland halka may joogteen haddii ay cadaadis ku imanayso oo wax kastaba la isku dayay waxaan rabnaa in caqligu shaqeeyo caadifada la iska daayo wanaaga iyo jiritaanka iyo nabadda gobolkan aan ku wada noolahay laga shaqeeyo waxa jira wadamo badan oo dunida ka mid ah oo iyaguna aqoonsiga Somaliland dhibaato u arka waxaan rabnaa dunida oo dhan inaan u sheegno Somaliland aqoonsiga la aqoonsaday waxa uu soo kordhinayaa oo wax weyn ku tarayaa nabadda gobolka waxa uu wax weyn ku tarayaa ilaalinta iyo adkeynta amniga badda cas waxa uu wax weyn ku tarayaa oo uu soo kordhinayaa wada noolaanshaha iyo dhaqaalaha isdhexgalka gobolkan aan ku noolahay wadamada maanta doonaya inay inaga inoo lagjar gareeyaan Israa'iil baa aqoonsatay waa wadamo muddo dheer xidhiidh la lahaa wadanka Israa'iil Turkigu waa wadankii koowaad ee dunida aqoonsada jiritaanka Israa'iil 1948
kun sideed boqol iyo sideed iyo afartankii ilaa maanta marxalad kasta oo dhacda dagaal kasta oo dhacda wax kasta oo bariga dhexe ka dhaca Turkigu marnaba xiriirka uu Israa'iil leeyahay iska daa inuu gooyo hoos uma dhigin maanta markaa Turki diini nooma sheegi karo taariikhna inooma sheegi karo dhaqan kalena inooma sheegi karo danteennana inooma sheegi karo danteena inaga naqaana inaga ka shaqeynana inaga u taagan inaga matala waxa kale oo iyaduna xaqiiqo ah wadamada badan oo Carbeed in ay leeyihiin xiriir toos ah iyo mid dadbanba dawladda Israa'iil annaga haddaan nahay dawladda Somaliland ama xukuumadda Somaliland nalooma dirin inaanu dalal cayiman oo gaar ah ka keena aqoonsi qaarna aan ka tagno inaan dunida aqoonsi ka doono ayaa naloo diray dal kasta oo Somaliland aqoonsada midab kastuu leeyahay iyo diin kastuu leeyahay iyo dhaqan kastuu leeyahay waanu aqbalaynaa aqoonsiga ay nasiyaan sidaas la mid ah annaguna waa ixtiraameynaa danahooda iyo xiriirka naga dhaxaynaya xiriirada aan leenahay macnaheedu ma aha inaanu cid ku dhibaataynano macnaheedu ma aha inaanu cid ku fogeynano macnaheedu ma aha inaanu cid xumaan ugu qaadano wararka beenta ah ay Soomaalida Muqdisho joogtaa doonayaan inay faafiyaan ayaan iyadana rabaa shacbiga reer Somaliland iyo dadka Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ah inaanu sheego ma jirto wax annaga iyo Israa'iil aanu ka wada hadalnay oo la xiriira qadiyadda Palestine waa ku celinayaa ma jirto wax annaga iyo Israa'iil aan ka wada hadalnay amaba aanu ka sheekaysanay oo ku saabsan qadiyadda Palestine marka waxaan rabaa inaan Soomaalida u sheego inay taa yaqiinsadaan taa xaqiiqsadaan iyaga qudhooduna waa la soconaa inay juhdi badan iyo dadaal badan ku bixiyeen inay Israa'iil xiriir la yeeshaan kan hadda Somaliland iyo Israa'iil u abuurmay oo kala aad iyo aad ba u mahadsantihiin mar labaad waan idin bogaadinayaa waxaan idin ka codsanayaa oo aan idin soo jeedinayaa maalmaha aynu ku jiro farxadda ah inaydu shacabkiina la dabaal degtaan waxaan idin soo jeedinayaa fariinta iyo dareenka shacbigiina inay xambaartaan waxaan idin soo jeedinayaa inaydun ka shaqeysaan sidii fariinteen iyo hadalkeenu u meel dheer oo fog u gaadhi lahaa shacbiga reer Somaliland waxaan soo jeedinayaa inay isku duubnaadaan mid ahaadaan shaqadii ay hayeen laban laabaan dantooda sidii shalay u ilaashanayeen u ilaashadaan cadawgooda ka cusub iyo kii shalayba si isku mid ah ay uga feejignaadaan inaan lagu soo dhexdhoomanin inaan qadiyadda Somaliland cidda ka soo horjeedsata aanu shacbigu u dulqaadanin oo aanu aqbalin xukuumaduna sidaas la mid ah qofka ka soo horjeesta qadiyadda Somaliland sidii shalayba loo diidanaa ayaa maantana loo diidayaa lamana aqbali doono cid qadiyadda Somaliland ka soo horjeeda inay halkan joogto oo ay maxaan ku dhahday waxay doonto ka samayso oo waxa ay doonto ay ka tiraahdo waxa ilaa xalay aad u cambaareynayay xiriirkan Somaliland iyo Israa'iil dalal badan oo qaarkood carab ku dhafatay sida Midowga Afrika Djibouti Masar Turkiga oo kale dad bay la xalay aaminsanaa in dalalkaasi ay qaarkood qunsuliyad ku leeyihiin Hargeysa sida Turkiga iyo Djibouti oo kale maxay idinka qorshaysan qunsuliyadaha dalalkaasi ay ku leeyihiin Hargeysa maadaama ka soo horjeeda qadiyadeena Somaliland talaabooyin laaban kama qaadeen su'aasha labaad xalay diblomaasiyiin Israa'iil waxay sheegeen in madaxweynaha Somaliland uu bishii Oktoobar Israa'iil safar ku tagay taasina ay soo baxday kadib markii si taxasim lagu dhawaaqay aqoonsiga xiriirka Somaliland iyo Israa'iil safarkaasi ma jira mise ma jiro wasiir magacaygu waa Maxamed Suldaan su'aashan ku weydiinaya waxay tahay Israa'iil aqoonsi bayna siisay maxay tahay inaguna waxaynu siinay maadaameydan shacbiga Somaliland u sheegin waxay nagaga bedelatay aqoonsiga ayna siisay su'aasha koowaad wadamada halkan qunsuliyadaha ku leh in Somaliland xalay cambaareeyay run ahaantii xiriirkan la leenahay dib baanu istedhigareynana diblomaasiyadda caadifad kuma dhisna wadamadu iyagoo wax ka wada shaqeynaya ayay waxna iskaga soo horjeedi karaan laakiin tiise channelska diblomaasiga ayaa waxa aanu ku oranayay sidaan ula macaamilayno hadii ilaahay raahdo aanu u maraynaa arinta kale waxaan jecelahay inaan ka gaabsado oo aanan imika waxba ka oranin su'aasha kale iyaduna maxay Israa'iil ay dhaafsatay
إسرائيل دنا بدن بين دحمر كرا دنا دقالين دحمر كرا دنا سياسات بين دحمر كرا إننا دحمر دونا هدي لها هذا إن شاء الله ودن كين ووطن هضنا وودن محن كل هذا إن معدن بدن له وودن شذال له وودن جوب استراتيجية كويلا مركز حديد استراتيجية أو محن كل هذا دقالة هي سياسات بله أيين وضيالنا هدي لها إن شاء الله تيدافس تينو وتاوي